xidigii hore kooxaha Barcelona iyo Liverpool Javi Mascherano ayaa ku dhawaaqay inuu si rasmi ah uga fariistay ciyaarista kubadda cagta. daaficii hore kooxda Barcelona sidoo kale qadax ugu soo dheelay Liverpool ee Javi Mascherano ayaa meel iska dhigay kabaha lagu laado kubadda cagta. xidiga reer Argentina ayaa kabaha iska bixiyay kadib waayo ciyaareed oo ku soo qaatay wadankiisa iyo sidoo kale dalka Brazil, England, Spain iyo China. inkastoo qadax ugu soo dheeli jiray kooxdii Rafael Benitez ee Liverpool ka hor intuusan ku biirin kooxda Barcelona ee Pep Guardiola ee qabsaday dunida sanadkii 2010 halkaasoo booskiisa burburiyaha qadka dhexe ugu tagay una guuray daafaca dhexe asagoo ka garab ciyaaray Gerard Piqué. Javi Mascherano ayaa kooxda Barcelona u saftay 334 kulan kadib 8 xilli ciyaareed oo ku soo qaatay kooxda ka dhisan gobolka Catalonia. 36 sano jirkan ayaa waqti uu joogay garoonka Camp Nou wuxuuna kula guuleystay 5 koob oo horyaalka La Liga, 2 koob oo UEFA Champions League. intaas kadibna waxa uu ka dhaqaaqay sanadkii 2018 kooxda ka dhisan wadanka Jeenaha ee Hebel Jena Forten. Mascherano wuxuu waayihiisa ciyaareed soo gabagabeeyay asagoo laacibka saddexaad ugu safashada badan Barcelona horyaalka La Liga ee Isbaanishka waxaana ka horeeyay kaliya Leo Messi iyo Daniel Alves. sidoo kale Mascherano ayaa haatan laacibka ugu safashada badan xulka Argentina wuxuuna u saftay 142 kulan wuxuuna xitaa xulka kaga safashada badan yahay xidiga ee xulka iyo kooxda Barcelona ee ka wada tirsan yihiin Leo Messi. Javi Mascherano ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka fariisto kubadda cagta waayo qurux badan wuxuuna ku soo qaatay Javi Mascherano kooxaha Barcelona iyo Liverpool iyo xulka wadanka Argentina.